dowladda Imaaraadka Carabta ayaa maanta dowladda Soomaaliya gaar ahaan wasaaradda amniga waxay ku wareejisay gawaari iskugu jirta kuwa gaashaaman ee aan xabadu karin cabdi bilayaal mootooyin iyo sidoo kale booyado waxayna munaasabadii lagu wareejinayay wasaaradda amniga gawaaridan ay ka dhacday gudaha safaaradda Imaaraadka Carabta ee ku leedahay magaalada Muqdisho waxa ka soo qayb galay wasiirka wasaaradda amniga taliyaha ciidamada booliiska Soomaaliyeed saraakiil iyo sidoo kale safiirka dowladda Imaaraadka u fadhiya Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho wasiirka wasaaradda amniga Soomaaliya Cabdirasaaq Cumar Maxamed ayaa ka gudoomay dowladda Imaaraadka gawaaridan waxa uu uga mahad celiyay garab istaaga Soomaaliya ee garab taagantahay dowladda Imaaraadku wareejin wadanka Imaaraadku uu ugu wareejinayo qalab iyo gawaari uu u keenay wasaaradda amniga gaar ahaan booliiska dowladda Soomaaliya qalabkan sida arkaysaan oo baaxadaas weyn leh ayay noogu deeqeen wadanka Imaaraadka Carabta waxaan rabnaa inaan uga mahad celino wadanka Imaaraadka Carabta taageerada ay mar walba dowladda siiyaan waxay qayb ka noqonayaan qalabkan oo ay ku jiraan booyadihii biyaha oo ay ku jiraan baabuurta qufulan oo yani meelaha qobrita aysan karin oo ay ku jiraan cabdibilayaashan iyo mootooyinka intaba waxay qayb ka noqonayaan dib u dhiska ciidanka booliiska ayaa iska leh markay la wareegaan waxay noqonayaan inay ku shaqo tagaan aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa Imaaraadka mar walba taageerada ay nabad garab taagan yihiin safiirka dowladda Imaaraadka u fadhiya Soomaaliya Maxamed Axmed Cusmaan Xumaadi ayaa isna dowladda ku wareejiyay gawaaridan waxa uuna sheegay in gawaaridan si gaar loogu talagalay booliiska Soomaaliyeed كافة المجالات وخاصة في المجال الأمني وهذه دعم يأتي حق في إطار دعم قوات الشرطة الصومالية لعملها الدؤوب ونشكر معالي وزير الأمن على الدعم المستمر وقائد الشرطة محمد الشيخ أن دولة الإمارات مستمرة في دعم جهودها لاستقرار الصومال وأمنه وفي المقام الأول هو استقرار الأمن للصومال ويأتي هذا الدعم المستمر للشرطة ومن ثم إن شاء الله سوف يكون هناك دعم آخر للقوات المسلحة الصومالية في المستقبل القريب إننا نتطلع دائما إلى أن دعم العلاقات الوطيدة بين الدولتين الشقيقتين وهذا ليس غريب على دولة الإمارات بدعم الصومال. دولة الإمارات كعربت ayaa waxay kamidtaha dowladaha saaxiibka dowladaha dowladda Soomaaliya isla markaana inta badan gudoonsiisa macaawinooyin dhinacyada kala duwan iskugu jira. Axmed Cumar Sheekh Nuur Cable TV magaalada Muqdisho.